halkan waa xero tababar ugu socda dhalinyaro la doonayo inay ka mid noqdaan ciidanka koonfur galbeed ee Soomaaliya waana kuwii ugu horeeyay oo tababar lagu siiyo magaalada go'doonsan ee Waajid ee gobolka Bokool waxa booqday xildhibaano gudoomiyaha gobolka Bokool saraakiil ciidan iyo odayaal dhaqameedyo isugu jira haddii tababarka kadib ciidanka la qalabeeyo qorshahooda waa inay furaan wadooyinka magaalada soo galaya oo muddo 2 sano ka badan aanay jirin cid soo gashay iyo wax ka baxday gaashaanle sare Cabdi Maxamed Dile oo ah taliyaha ciidanka militariga dawladda ee gobolka Bokool iyo sarkaalka ciidanka Ethiopia u qaabishan degmada Waajid ayaa ka hadlay ammaanka iyo ciidankan tababarka u socda ujeedkooda hana loo diyaar garoobo inaanu dalkeena xoreyno heer waxaan soo marnay gabadhu dhiisha caanaha ay ku keento ay raashin kaga soo qaado kurta mise ma baantayba waxaan rabnaa in qofka kaligiisa lugeeyo xoolo kaligeedu lugeeyaan idinkoo kaligiin oo fasax aad martaan wadada oo baydhaba tagtaan muqdisho tagtaan oo kiina fasaxa soo iska nabadgeliya tucaas gaariga raaco iska baxo mas'uuliyadna ka falana annaga dhiigana dadana way kule lamaana mas'uuliyadna ka falana annaga yawdayna markay ku kule marxna dhiig la garooway taageer lama tanakar bulon annaga wadanka Soomaaliya ee dariska annaga xildhibaan Ugaas Isxaaq Cali oo ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed iyo gudoomiyaha gobolka Bokool Maxamed Cabdi ayaa ku booriyay ciidankan tababarka dhawaan loo soo gabagabayn doono inay isku furaan wadooyinka degmada iyo xaqiijinta amniga dhawaanna hub iyo qalab la siin doono number 1 dadka isin mayl raay ku dhalatan gabro yaryarka ah in la shaqeeytaan dogdo waa yarka oo mayl raay dika jarto haafada ka jarto in la shaqeeytaan wayan izaaid doona hadii ilaahay madaxweynaha koonfur galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ninkooya hubkiya libiye shaqadaas madinin dhamaad hadii ilaahay walaaynu ka ballaneen saad odaalka siin sheego ballanteen mayo shabaab waa jidkeen la furo shabaab askartan koonfur galbeed ee tababarka ugu socda magaalada Waajid ee gobolka Bokool waxa igaga muuqday gabdho iyo wiilal aan qaangaarin waxaana TV-ga Universal uu la sheekaystay mid kamid ah caruurta da'da yar ee aan qaangaarin ee la askareeyay Maxamed Iimaan Abdirahmaan Maxamed Meelun adarogta meelere Waajid haye gaarhan dhalinyaradu inta fadhiyaan adag ka jirta ma soo bixaytan askar nagan adoog isku dhoon haye tababarteen hata ha haye ma bilo tababar sin dareer tababilod haye marka adameysan jirta tumishan adoo tumishan sana jar oo anu jir atamay qasab inta askarnayd inta askarnay waleen anti dalka diintan horeysan oo awkaynan argudo anti adoog wadankan ku saar muxuddin xusni TV-ga Universal magaalada Waajid